طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسران طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا أقبات كوكين عن هيلتي maanta waxaan sameysanaynaa quraac healthy ah oo anagu aan sameysanay oo guriga aan ku sameysanay oo ka kooban waxyaalo badan oo nutrition ah una fiican dadka raba inay miisaankooda dhimaan ama dadka raba inay caafimaadkooda ay horumariyaan iyo waayeelka kale fiican aad ugu fiican waxyaalo badan bayna ka kooban tahay insha Allah waxaan rabaa inaan waxyaalahaas aan idin sheego waxa aan rabo maanta inaan isku dardaro waxa weeyaan oatskan oo wada taqaanaan ama boorash dadka u yaqaanaan ama xilwaha noqdo ama mid kale ha noqdo kan weeye halkaan ku soo shubtay kiilo qaadaa laakiin hadda haaf ma halkaan ku shubay haafkiisa halkaan ku shubay waa boorash waa kaasa boorash weeye aad buu u fiican yahay caafimaadkiisa kanna waxa weeyaan lowskan waddankeenana waa laga helaa meel kastana wuu yaalaa isaguna aad buu u fiican yahay kan waxa weeyaan pumpkin seed baa la yiraahdaa English ahaan laakiin waxa lagu dhahaa Soomaali miraha bocorka midkan waa sabiib faa'iidooyin badan buu leeyahay isaguna waxaan rabaa in isagana aan ku daro tan waa timirtaan oo iyaduna aad u faa'iidooyin badan oo iyada kaliya wax ta cunno noqon karto waa tana iyaduna Allah musta'aan kana waxa weeyaan malab weeye midka kana intaas aan rabaa inaan maanta isku hagaajiyo hadii la idmo aan ka sameeyo quraac waxaan kaloo ku darayaa kan oo chia seed la dhaho oo dadka dhan yaqaanaan oo miisaanka isagana la isaga dhimo haddaad rabtid biyaad ku darsanaysaa oo laba qaad oo kamid ah galaas biyo cad ku darsanaysaa markaas aad cabaysaa subaxii waxaad ku joogaysaa quraac ahaan kaligiis laakiin maanta intaan ku daraynaa hadii ilaahay idmo wax yar baan rabay qayb kamid ah caafimaadkooda iyo faa'iidada laga helay aan idin la wadaago xoogaa kan oo kala kamid ah boorashkan hadda dadku way iska dhayalsadaan hadda qofka subax kasta quraac u karsada kaligiis wax badan buu taraa fitamiinada laga helo waxa kamid ah vitamin minerals fiber oo waxyaalaha qolofta leh oo dhan ay maxaan ku raada ay ka buuxaan sida sareenka bariiska qoloftiisa waxaas oo dhan way ka buuxaan Allah musta'aan antioxidant weeye oo qofka sunta buu ka saaraa sunta qofka ka saaraa jirkiisa oo dhan wixii sun ku jirta ka saaraa weight loss weeye oo miisaanku wuxuu dhimaa sokorta iyo blood pressure labadaba hoos buu dhigaa wuxuu kaloo sameeyaa xanuunada wadnaha ku dhacay inuu hoos u dhigo buu aad ugu fiican yahay manganese maadada la yiraahdo iyaduna ku jirta maadadaas oo maxaan ku rahdaa sameeysa unugyada jirka iyo lafaha iyo calciumta intaas oo dhan ba iyaduna mas'uul ka tahay xinjirowga waxa la yiraahdo clothinka oo qofka maaragtay dadka dhigooda uu furfuran yahay oo kale baa laga helaa boorashka kan iyo waliba hormoneska uu regular gareeyaa intaas oo dhan magnesium laga helaa magnesium iyo manganese waa kala gaar phosphor baa kamid ah oo iyadana ilkaha formationkooda waxaas maaragtay sameeyso hagaajisa baa kamid ah magnesium oo hadda idin sheegay baa kamid ah oo iyadana muscleska iyo nerfayaasha iyo xataa DNA-da formationkeeda maaragtay ka qayb qaadata dadka neerfaha qaba xataa aad ugu fiican yahay iron baa laga helaa oo idinkuna taqaanaan oo badisa dhiig iyo waxa zinc baa laga helaa oo iyadana macdan ah folate baa laga helaa oo iyadana macdan kale oo jirka aad ugu fiican ah vitamin B iyo vitamin B1 baa laga helaa iyaguna maqaarka aad ugu wanaagsan neefta ilmaha yarka ku dhacdana aad buu ugu fiican yahay ilmaha hadda u karisid uu maaragtay aad buu ugu fiican yahay waxyaalaha kan xiiq iyo sanbabadooda ka yar aad buu maaragtay u dhimayaa adoon waxaan ugu darin hadda kaligiis asaga sameeyso hadarta mal ugu dartid wuxuu kaloo yareeyaa calool fadhiga ama constipation ka aad u yareeyaa kana isagana marka wax yar idin kaga tilmaamaya rice baa lagu yiraahdaa Englishka laakiin waa sabiib weeye waxa aad uga buuxa isagana fiber waxa idin ku sheegay waxyaalaha qofaha laga helo ama ay ku badan tahay waxyaalaha kan feerada la yiraahdo caloosh inay soo kacdo oo ay kor u soo kacdo buu yareeyaa sida qofka cunada ku soo noqoto kale buu aad u yareeyaa iyo gaaska buu ka hortagaa caloosh iyo gaaska wax la socdo hoos buu dhigaa iron baa ka buuxda wuxuu aad ugu fiican yahay ilkaha iyo caafimaadka afka aad ugu fiican yahay suntu jirka ka saaraa calcium buu leeyahay skinkana aad buu ugu fiican yahay
wuxuu hormariyaa timaha buu hagaajiyaa aad buu timaha u hagaajiyaa hurdo la'aantana wuu ka qayb qaataa isaguna bahalkan aad buu hurdo la'aanta maaragtay uga qayb qaataa oo qofkii cuna sacabka ama qaado cuna hurdadiisu maaragtay waxay noqonaysaa hurdo wanaagsan bay noqonaysaa cholesterolka hoos buu dhigaa hypertensionka ama dhiigkarka isagana hoos buu dhigaa sokortuu kontroolaa keliyaha dadka laga hayana aad buu ugu fiican yahay allahu mustacaan intaas weeye waxaa ka mid ah waxyaalihii aan maanta aan sharaxaynay qorfahan baa ka mid ah waa qorfo shiidan intaas baan ku darsanaynaa qaadadaas foodeedaan ku darsanaynaa quraacda aan samaysanayna saaka ama isnaaga aan samaysanayna faa'iidooyin fara badan buu leeyahay waxaa ka mid ah inuu daweeyo fungalka waxa la yiraahdo iyo bakteeriyada iyo fayraska intaba wuu daweeyaa intaasba aad buu u daweeyaa sababtoo ah waxyaalaha bakteeriyada ah germs weeye germs ku yimaadaan isaguna waa wax antibiotic camal buu u shaqeynayaa qofka haddii meel ama boog kaga taal ama calooshiisu ay maaragtay calool xanuunsan tahay hadduu cabo ama shaah yar ku darsado ama uu biyo yar ku qasto aad buu u fiican yahay fungal weeye oo waxyaalahan candidada la yiraahdo ama afka ku dhaca iyo dumarka iyo hoos kaga dhaca badanaa aad buu ugu fiican yahay waxyaalaha fungalka la dhaho aad buu ugu fiican yahay waxaa ka mid ah maadaama uu fayraskan u fiican yahay xataa culimada ka samaysay researchiga waxay dhaheen haddii uu fayraska daweynayo sida waxyaalaha aan la aqoon oo hadda influensada ama dadka hargabka markuu cusub yahay oo kale waa iska virus laakiin kabacdi uu bacteria noqdaa qofka markuu qufaco waxa malax iyo waxaas u tufo maadaama la yiri viruska daawo uu yahay xataa waxay leeyihiin culimada qaarkood inuu daweyn karo HIV-ga inuu daweyn karo bay sheegayaan culimada maaragtay aad u baartay bahalkan waxa kaloo ka mid ah menstrual cramps waxa la yiraahdo ama caadada dumarka ku dhacda oo aad maaragtay u dhibta inuu isaguna uu daawo ka yahay oo markii ay gabadha qabto caadada hadii 7 bari ay wax yar hadba ay maaragtay ku darsato biyeed shaaheeda ay ku darsato aad buu anfacayaa bahalkan isaguna waxa soo haray lowska waxa laga helaa saliidda tan la yiraahdo omega 3 oo laga helo fishka isagana waa laga helaa waxa kaloo laga helaa saliido badan oo dabiici ah oo jirka u fiican omega 6 waa laga helaa aad baa bahalkan u fiican yahay xagga caafimaadka iyo lafaha iyo waxaas oo dhan aad buu u fiican yahay kan baa ku soo haray aad buu caloosh ugu fiican yahay iyo mindhicirada iyo intaas oo dhan buu u fiican yahay malabkana hadda waaba taqaanaanba iyo timirta allah musta'aan chia seedkana isaguna aad buu fiican yahay mar isagana aan ka samaynayo oo la cabayo ama subaxii wax kale lagu darayo baan soo gelinayaa haddii ilaahay idmo maanta intaas hawshan ka kooban tahay ee processkeenu waxa rabnaa inaan marka waxa rabnaa aan hawshan guda galo kana waxa rabaa aan soo dubo waan dubayaa muddo waxaan sameynayaa 15 minutes ah baan microwave-ka gelinayaa wuu karsanyaa sidiisa xataa waa lagu cuni karaa bahalkan caana ku darsan kartaa wax dhiba uu leeyahay ma jirto marka in yar malab aan ku darayaa waa nus kiilo boorasha 3 qaado malab aan hadda ku daray malabkan markaan ku daro waxaan gelinayaa microwave-ka wax yar si uu maaragtay uu nagu gudubto ama sidii wax bisil oo kale ilaa sidiisa lagu cunayo caana lagu darsanaya qofkii raba caana ku darsanaya qofkii kalena wixii kale oo markaas uu haysto ku darsanaya haduu rabo maraq isaga darsan kara wax dhibo ma leh maraq cadaan isaga darsan kartaa ama kan suugada kale isaga darsan kartaa wax uu leeyahay oo shida ah oo dhibaato ma leh wax rabtaa ku darsan kartaa haddii ilaahay idmo dadka waaweyn waxa u fiican inay ku darsadaan caano geel ama dadka cholesterolka leh ama dadka raba inay miisaankooda ay dhimaan caano geel ama caanaha kan oo skimmed milk kuwa aan dufanka ku badnayn in uu ku darsada fiican qofka weyn oo ama iska ridiyo miisaan ama ka cararaya dufanka cholesterol wax noocaas qaba inuu intaas ku darsada roon marka waa soo dubanaynaa insha Allah haddii ilaahay idmo waa soo noqonaynaa bismillaah halkaan iskula darayaa waxa dhan kan waa sabiibkii iyo qorfihii kan waa lowskeeni inoo shiidnaa way isaguna oo aad iyo aad u fiitamiin badan kan waa pumpkin seedkeeni ama mirihii bocorka oo isagana aan soo shiiday
tanna waa timirtii oo maxaan ku radaa iyadana aan qaabkaas aan u soo sameeyay chia seedkan isagana waxaan uga darayaa ugu yaraan 3 qaado meelahaas aan uga darayaa 3 qaado aan uga darayaa insha Allah hadii la heedmo chia seedka faa'iidooyin badan buu leeyahay chia seedka insha Allah mar baan isaga anoo ka sheekeynaya idin soo gelinayaa hadii Ilaahay idmo asxaabta channelka Ugbaad ku soo dhawaada cunno healthy ah maadaama aan caafimaadka wax ka naqaano wax badan baan idin soo gelinaynaa oo ma noqonayso cunno karis bes waxay noqonaysaa waxyaalo badan cunooyinka iyo waxa laga helo iyo sida ay yihiin iyo sida jirka dadka caafimaadka uga heliyo ina waxay noqonaysaa ma sha Allah aan idin soo gelino cunnada waxayna ama waxyaalaha kale dadku u baahan yihiin waana soo sharaxaynaa hadii la heedmo dadka caafimaadka waxa ugu jira iyo waxaan ugu jira hadii la heedmo waa isku daraya halkaan ku soo meeshan ku kaydin lahaa waan ku shubayaa maxaan ku radaa markaan halkaan ku shubo baa idin tusaya hadii la heedmo isku soo noqonayna hadii la heedmo bismillaah waxaani waa kana maanta dhan aan soo wadnay hawsheeni waatan waa gabagabo waxaad ku shubanaysaa weel ama container san oo kala ah oo nadiif ah oo aan qoyanayn baad ku shubanaysaa ku kaydsanaysaa marka cunadeeni oo dhan oo combine waa kana nafaqo dhan maanta halkaan ku jirta nutrition marka quraacda aad ka samaysanaysid marka qof kasta intii isaga markaas ku filan waxay waa kuwaana suuqa dhex jira saan baad dhahanaysaa alxamdulillah qofkii raba sokor inuu ku darsado wuu ku darsanayaa aanahana waa kuwaana aana geel malabka marka qofkii aan rabin markaas sokor malabkiisa wuu ku darsan karaa hal qaado saas ugu darsan karaa hal qaado ku darsanayaa alxamdulillah waxa hore moos aan dusha uga dareyno moosku waxyaalaha aad u fiican weeye dheefshiidka u fiican weeye isaguna oo xagga caloosh u fiican waliba min subaxda markay tahay oo kale inaad saas kala boorash ugu darsatid ugu fiican waa tan quraac oo healthy amaanta ma aanan badin laakiin qofka isagu intuu rabo buu samaysan karaa waa taasa qofka intaas ku quraacan karaa markaan ka soo bixinayay microwave-ka kaamirada iima qaban waa idinka raali gelinayaa laakiin waxay ahayd 15 iyo 180 degree oo kor iyo hoos 25 daqiiqo bas ku jirtay waxa la rabaa inuu midabka brown ka yeesho awalba halkaan islaaba wana burburaya midabka sirka brown ka inuu yeesho la rabaa waana diyaarsan yahay waa kaasa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh